iyada heshiiska loo cusboonaysiiyo. ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo Nosej ayaa sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay tahay tii ugu adkeyd ay wariyaashu la shaqeeyaan. Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa ka waramaya. maxamed ibraahim macallimu xogayaa ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosej ayaa si kula uga hadlay qatar uu sheegay inay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala magaalada Muqdisho taas uu sheegay in lagala kulmayo dawladda Soomaaliya. macallimu ayaa marka hore ka hadlay Nuur Ismaaciil Sheekh oo ah wariye hami siyaasadeed lahaa oo toddobaad ku xiray magaalada Muqdisho maalin ka horna iyadoo aan maxkamadii dambi ku xukumin loo gudbiyay xabsiga dhexe waxaana markii uu arrintaasi ka hadlay barbar taagnaa hooyada dhashay wariye Nuur Ismaaciil Sheekh. xogayaa ururka Nosej ayaa sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay tahay xukuumaddii ugu adkeyd oo ay la shaqeeyaan wariyaasha waxa uuna sheegay in wariyaasha laga dhigay qaar la siiyay laaluush oo la aamusiyay kuwa loo hanjabay iyo kuwa la xiray arrintaasina ay curyaaminayso in la helo warbaahin madax bannaan oo shaqaysa. wariye muddo toddobaada ku xiran magaalada Muqdisho oo 20kii bishan ay ciidamada dawladdu xirteen ilaa haddana maaragtay aan la ogeyn meel lagu haysto waxaana loo sheegay in maaragtay maalintii sabtida ahayd la keenayo maxkamad laakiin maxkamad lama keenin waxaana loo sheegay in xabsiga loo dhaadhiciyay wariyahaasi ilaa hadda ma naqaan sababta ku xiran yahay haddii dambi uu leeyahayna waxay ahayd in sharciga la hor keeno oo maxkamad la hor keeno waxaad moodaa inay tahay hab la doonayo in lagu caburiyo qof kasta oo hadla ama qof kasta oo maaragtay ra'yigiisa soo bandhiga muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta saxaafadda Soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan hab adag ma dabagalaan kuwa wariyaasha dhibaateeya waxaad ogtihiin in 15kii bishii Oktoobar ama bartamihii sanadkii bishii Oktoobar haddana soo dhaaftay wariye la yiraahdo Cabdalla Muumin ayaa maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu laftiisa dadka tirsan ay u hanjabeen ilaa hadda wax baarisa laguma sameeynin waxaad ogtihiin wariye in lagu dilay beerta nabadda halkaas ay Xamar Jajab oo niman askar ay toogteen ilaa hadda meel dabagal loogu sameeyay ma jirto xukuumadda wax dabagala iyo wax war ay ka keentay malaha sida suuragal u tahay nin ku jira booliis oo shaqo ku jira in la yiraahdo lama garanayo qofkii wariyaha dilay waa arrin ku talagala isla markaana raali laga yahay sida noogu muuqata xukuumadda hadda jirta waxay u go'doontay inay wariyaashu kala qaybiso inay maaragtay ururadii saxafiyiinta iyo dadkii ay soo dhex galaan oo la kala qaybiyo waxay samaysay laba arrimood oo waaweyn oo hore aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha Soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo iyo sidoo kale qaar la laaluushay oo inta maaragtay mushaar bila loo qoray bishiiba loo qoray ama suxufiha ah ama saxaafad ha ahaato isla markaa loo diiday inay runta sheegaan waana arrin kale oo walaac muujinaysa oo ay gaar u tahay xukuumadda hadda jirta sidaa daraadeed ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed wuxuu u arkaa arrimahan inay yihiin arrimo aad xasaasi u ah. maxamed ibraahim macallimu ayaa sheegay in wariyaasha loola dhaqmo sida gacan ku dhiiglayaal maalin walbana ay diiwaan geliyaan cabashahan jabaada oo ay wariyaashu kala kulmayaan xukuumadda Soomaaliya wuxuuna cadeeyay in culeys badan ay soo food saartay warbaahinta ayna qatar u saaran yihiin in shaqada ay joojiyaan sida uu hadalka u dhigay. waxaad moodaa in wariyaasha ay dadka wax qoraal loola dhaqmayo sidii qof maaragtay gacan ku dhiigla oo kale marka arrintaasi waxaad moodaa in ay tahay arrin walaac weyn ku haysa saxaafadda Soomaaliyeed isla markaana caburin ku ah dadka saxaafadda iyo wariyaasha wax u qora guud ahaan waa yaabanahay culays badan ayaa saxaafaddii Soomaaliyeed soo saaray dad badana maalin kasta noo yimaado oo sheegay in loo hanjabay saxaafadaha hoos noogu yimaada xukuumad maaragtay annaga ma wada dhahin xukuumad guud ahaanteed waaye laakiin waa dad ku jira xukuumaddii ama wasiirro ka ah ama maaragtay shaqooyin kale ka haya maanta waxay ku jirtaa meel khatara waxaana u sababa xukuumadda hadda jirta sidaa darteed qof kasta oo maaragtay Soomaali ah waxaan u sheegaynaa in aanay adkaan doonto in saxaafadda Soomaaliyeed wax shaqo ay qabato oo ay noqon doonaan qaar la ragaadiyay iyo qaar la laaluushay meel maaragtay saxaafadda Soomaaliyeed la isku haleeyana ay awoodi weyso. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo cid kasta oo awood u leh ayuu ka dalbaday inay soo farageliyaan dhibaatada ay wajahayaan wariyaasha haddii ay xaaladdu sidan sii ahaatana waxa uu sheegay in qatartu intaan ka badan doonto isagoo dalbaday in la soo daayo wariyaha u xiran dawladda Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha waa sharci ilaalihii inay arrimahan soo farageliyaan oo xukuumadda hadda jirta dhibaatada ay ku hayso saxafiyiinta iyo saxafiga Soomaaliyeed maaragtay laga qabto faragelin lagu sameeyo oo wax weyn laga qabto isla markaana la soo daayo wariyahan maanta la xiray maaragtay toddobaadka iska xiran wax sharci uusan ku xirnayn sababtoo ah wariyaha haddii sharci loo hayo oo dambi lagu haysto hala keeno maxkamadda
laakiin ciidan maxkamadda la keenayn waxay u muuqataa inay tahay jujuub waana hab muddaba la soo waday oo la doonaya in saxaafadda Soomaaliya lagu cadaadiyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hore loogu eedeeyay inay xirto shakhsiyaad isugu jira wariyaal siyaasiyiin iyo dad kale oo wax qora kuwaas oo la sheegay in dowladda ay ku dhaliileen qoraal ay soo dhigeen akoonnada ay ku leeyihiin baraha bulshada ee internetka waxaana dadkaasi ugu dambeeyay wariye Nuur Ismaaciil Sheekh oo muddo toddobaad u xiran qoraal la sheegay in bartiisa Facebook uu ku daabacay dibadbax rabshado wata ayaa